diyaar garow maanta meeshan aan ku arkay waxa kamid ah in gudoomiyaheena uu noo imaaday oo meeshan sidaan u kulul lagu leeyahay marka gudoomiye ma dhig karna ciyaariyahan waa dhig karna anaga wallahi markaas waxa ku muuqanayso inaad degmooyinka heerka gaari kartid oo aad waxa ku dhiirinaysaa gudoomiyaha inuu ku imaado kula dheelo qof kale oo garoonkaaga hor imaado inuu waxba ka qaadi karin wallahi farqi badan u dhaxeeyo hadda waxa meelahan geesa iga muuqdo gudoomiye sportska gudoomiye degmada ciyaartooy fara badan oo soo xaadirtay marka abaabulka aad u sareeyay sanadkan والله شقة ما أنت أقولني رنتي شقة ذا رنتي ما أنت أبنا وحا ما أنت سفي عن نوع ما جرانك أو ديروين أو دير جلوين نوع إن قدوميه هني دقمة أو نوع ما أو دير جليو رنتي وحال وفرحة واي دقمين كلا بدنا ما هستان دقمين كلا ما هستان إن قدوميه أو ما رديلو وقتي أنا أوجد دين أو قرح قويل كان إنه قدوميه هنا بيقولنا العيار حنوتا دير جلين أدوين إن شاء الله runtii isbedel weyn wuu jiraa sanadka hore maanta ciyaartooyda haysano mana joogin sanadka hore waxa waa sanadka hore waa dadaalan laakiin dadaalka sanadkan naga muuqdo insha Allah wuxuu noqonayaa mid oo toos ah inaan ku tagi doono insha Allah koobkan aan ku guuleysan karno haddaan nahay maamulka degmada Hodan waxaan ku jirnaa tartankii kubadda cagta diyaar garowgiisa ugu dambeeyay waxaan shala yaani furmay isku aadaadkii la sameeyay waxaan ku soo aadnay group B ayaan galnay afar degmo ayaan isku soo aadnay oo ay yihiin warta nabadda xamar shajab iyo shibis kuwa kamid horaan uga soo reynay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan haddana wari group B ka soo bixi doono oo aan soo gudbi doono semi final sidaad ogtiin boorta anaga tartanka sportiska qaybihiisa kala gedisan waxaan siinay priority koowaad kulamo hore basketballka wiilashii gabdhaha ayaan waqti badan soo gelinay hadda waxaan ku jirnaa diyaar garow ugu dambeeyay xilligan qoraxda aad arkaysaan waxaan waqti kula qaadanayaa garoonka jaamacadaha marka waxaan isleeyahay qaabka diyaar garowga iyo si u diyaar garoobeen iyo dhiirigelinta iyo qaabka ay u diyaarsan markaa fiirinay insha Allah inaan koobka qaadi doono degmada gobolka Banaadir horta degmada Hodan waxay kamid tahay degmooyinka sportska yani ugu taageerada badan ee ku jirta taageerada degmada Hodan iyo kooxdooda waxaan leeyahay inay soo bixi doonaan oo ay kooxdooda garab sii doonaan oo dhiirigelin u sameey doonaan ayaan rajaynayaa waana ka codsana inay qayb nagala qaataan maalmaha aan ciyaarta leenahay saakay muddo 3 saacadood ka badan halkan kula ciyaarayay markaan arkay ciyaarta wanaagga ay soo bandhigayaan waxaan u rajaynayaa kooxda iyo degmadaba inay koobka hantaan sanadkan insha Allah